السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واku salaam walaal niyo ka xumahay saaxib suucitaanka waa arkaa kulay hadda qad kuma jirtid niyo meesha saaka waa tagay kulay wixii qoran baa dhacay magarad fiisiin way isu diideen insha Allah marka qad ka soo gasho soo wax barada dula wadlan wixii information isla wadaagi doona insha Allah. Assalaamu calaykum. codkaasi aad hadda wada maqasheen wuxuu ahaa maxamed waa wiil Soomaaliyeed oo ka mid ah sanadkii DV Lottery 2021 dadkii ku guuleystay laakiin calaf aanu u yeelnin. codkaasi wuxuu ahaa cod uu isoo diray sanadkii hore oo uu sheegay in fiisi loo soo diiday. waxaa jirta wareysi aan ka wareysta oo video aan ka sameeyay maxamed sababta loo soo diiday iyo waxyaabihii keenay video ayaa jira aan ka sameeyay. insha Allah videogaasi ayaa kala doontaa xog dheeraad ah videogan oo ma hadli doono arinkaas. maxamed sidoo kale wuxuu nasiib u yeeshay markiisa labaad inuu ku guuleysto DV Lottery 2022 dadkii ahaa ayuu ka mid ahaa sanadkani oo bishii la soo dhaafay ayuu interviewga maray. so videogan waxaan uga hadli doonaa maxamed waxyaabuu kala kulmay safarkiisii DV 2022. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kusoo dhawaada YouTube channelkeena Somali Youth Scholars. haddii ay tahay markii koowaad soo booqatay YouTube-ka soo dhawaayaan ku leenahay walaal fadlan. YouTube-kan waa YouTube aan kusoo gudbino deeqda waxbarashada barnaamijyada Green Card Lottery-ga sidaan oo kaleeto yacni dhammaan wixii quseeyo arrimaha immigration-ka. sidoo kale waxaan aad ugu xumahay in muddo aanan soo gelin video wax video yacni YouTube-ka aan soo gelin yacni wax video sabab jira awgeed iyo mashquulo. insha Allah waxaan isku day doonaa hadda ka bilowdo isbuucii inaan hal video soo geliyo haddii jaanis wal insha Allah. haddii aan u guda galno mawduuceena maanta oo ku saabsan maxamed bal hadda faham guud idinkiga sii yani qisadiisa guud. maxamed waa wiil Soomaali dabcan oo ka yimid dhankaasi Puntland gaaraan Boosaaso. laba mar ayuu DV Lottery ku guuleystay. mar waa sanadkii DV 2021 dadkii ku guuleystay iyo DV 2022 dadkii ku guuleystay. 21kii maxamed nasiib muusan u yeelin waa loo soo diiday. fadlan video ay jira ka sameeyay oo yani ku wareysta waxyaabihii loo soo diiday dhammaan. insha Allah qaybta linkiga hoose soo dhigi doonaan daawo videos daaro daawanin. then maxamed markii loo soo diiday fiisii sanadkaasi haddana waxa uu sii xariisanay yani DV Lottery 2022 dadkii uu sii xariisanay ku jira. then bishii afraad 2021 ayuu interviewgaas maray. then waa loo soo diiday. then bishii shanaad waxaa la furayay marka jawaabihii DV 2022 bishii shanaad 2021. then maxamed resultiga waxa waa uu helay yani haddana wuxuu ogaaday inuu ka mid noqdo dadkii ku guuleystay DV 2022. yani waxaa dhihi kara qof nasiib wanaagsan u ahaa. so marka meeshaan ay qisadiisa labaad ka bilowday maxamed ayar walaal waxaan aniga qof walaal aan ahnay barnaamijkana isla wada buuxina isla xareynay. so intaanan u gudbin waxyaabihii interviewgiisii wareysigan aysan dhexmaray waxaa rabaa inaad idinkaga sii xog yar. then markii yani uu ku guuleystay midkii labaad DV Lottery 2022 DV 2022 maxamed markii uu guuleystay then waxaa sameynay oo isla buuxinay foomamkii loo baahnaa oo ka mid ah foomkii DS 260 aan dirnay. then waxyaabihii documentiyada noogu baahnaa diyaarsanay. ala kulli xaal yani waxaan gaarnay interviewgi. mii maqashaa maxamedow? walaal waa ku maqlaa raay iyo warni maxaysaa taleefanka oo kusoo daalo kusoo caawa iga qaban weysay. walaal waa fiican alxamdulillah. yo maxamedow war maxaa ilaa dad badan soo wacaya kaniyo hambaliyada aniga qaristiniyo waa ku ogeyni saake yani inaa balan leedo ogay safaarada. then waxaa waaye oo kusoo wacay fariina kusoo dira xalayna ninka waa kusoo sheegi doonaa waa liisoo sii baashe
fiisi uu ku dhihi doonaa iyo jawaabna kaama helin brother maxaa akhbaar iyo heesaaniyo insha allah waxay iga farxi waa heesaaniyo saaxiib waa jeclaan lahaa inay saa noqoto aad iyo aad u jeclaan lahaa marka kolley wax qoran baa dhacay walkii ayay qof walba waxa weeye niyo hadalkaas ma fahmin maxay ka wadaa brother يعني fiisi ma lagu soo diiday macna asaas ma ula jeedaa maxay jiraa la brother dii oo waxa weeye maanta soo yeelnaa kolley waa kul soo wadaagi lahaa brother laakiin maysan noqon si ilaahay ka dhigi noqoto ma garata saakana alxamdulillah يعني maxaa dhacay brother war isiiniyo safaarada yani maxaa jiro yani ma lagu soo diiday yani wax dhacay ii sheeg safaarada saaka waa tagtay maxaa kala kulantay bal meesha akhbaarigiisii bal xog fiican yari wax ii bixi walaalkay warta waa mahadsan tahay aad waa mahadsan tahay kolleys fiisi limadiina saaxiib limana ogolaan marka laakiin ficil waxaa sameeyey saaxiib oo aan ku raadahay walaalkay aduu dhexdaa kasoo laabto garata ana dhexdaa kasoo laabto saaxiib ma garati niyo niga dadde saaxiib safaar dhexa lagama soo laabtee dee wax jir ii sheeg dee adeero ma dhexda kasoo laabata ileedaada saaxiib wax ii sheeg maxamed teeda kale niyo codaa duwaya yani maybe video youtube inaa ka sameeya laga yaabo saasuu la soco brother codkaan waan duwaya maybe futureka inaa isticmaalo يعني فيديو واحد كسمه لقى يا فيديو عد كائنات دوبنا أساس ولا صعب هذا ما يكون ملها دوبنا ده دونتو ولكن يورتا هذا ما صدقي نيو أنا حتى نيو أرتان محاول يروح إلى قرب بعد عام قرتي صح صار نيو ماشي وقتني لكن محاول فيها إن اللي سوء أخبار الصيد عادي أما جديده لا أصلا فيها لكن محاول إني أخبار أي رجين هاي laakiin saaxiib wixii wax ka duwan ayaa dhacayo dhaxda ayaa kasoo laabtay sababaan usoo laabtana haddii ay u galaato oo ku sheegi karaa ma garatay maxaa jira ii sheegday saaxiib waxa ii boobsi yani qofa bax ku dhahay soo laabo ku dhahay yani maxaa dhacay maxaa mise adaa yani ina baabki taga oo yani gudaha intaa ugu galan safaarad ma iska soo laabatay aa dhahday yani maadaama sanadkan dokumenti Soomaali la aqoonsanaa wax saas la sheegaynayo ama ani lii soo diido xasaas ma dhahdo dhexda ma ka soo laawatay mise maxaa jira ii sheeg bal brother ni walaalkay waa maasan tahay ahadaas waasaaka niyo waa yarada haysa xamin karti aad u tahay xilliga ku qornaa xilli ama ka yara soo durugsan bahtay meesha jam baaday dalay marka niyo ana ugu dambeeyay qodobka ugu dambeeyay kamid ahaa qofka ugu dambeeyay waana xamin karti alxamdulillah abdaa waa galay safaradii saddex albaab baaritaanka waa maray qofka ugu dambeeyay marka ugu dambeeyay ayaan ahaa ma garata saaka qofka mara marka niyo waxay iga horeysay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ilaa 5 qof gaaraya iga horeysay shanta waxay wateen dokumenti Soomaaliya walaalkay watay ma garata sax marka niyo dhalinyartii adiga albaabada baaritaankoodii marka gudihii aan galay qofka ugu dambeeyay maadaama aan ahaa waan arkaya marka dhalinyartoodii yara si u yar murugaysan markaan weydiiyo marka meesha waxaa jirta meel yar oo lagu nastay jirta safaarada ay leedahay gudaha marka ka salaambaa loo soo siin doonaa caadiyan bas sida video hore aan ku sheegay meesha marka keedkeeda fadhiyo marka qofka uu gudaha galaba la soo siiyo meel yar wuxuu fadhiisanayaa banaanka safaarada banaankeeda gudaha laakiin banaanka yar taala sax marka meeshaan markaan fadhiinay ayaa isweeraysanayna aniga dhalinyarta kale waxay maxaa jira marka kulli wax dhahniyo dokumenti oo nagala qaaday waxa sugeynaa interview macna qofkiina wareysan lahaa sax sugeynaa widahay marka sida marka halba qof loo yeeray anna wada dadka ugu dambeeya kamid ah marka qof loo yeeray marka qof koowaad asoo murugaysan soo baxay waray masameysay mayniyo ali diiniyo maxaa lagu sameeyay dokumenti way kii la galay kii saddexda galay ma garatay ana markii la afashanta qofba ay dhaafeen gudaha galay gabadhii meesha dokumenti iga qaadaysa ay u dhaaday walaalow wax dokumenti ana shahaado Soomaaliya waxaan ahay ma haysataa saa ku dhamay hadda waxaa tiraa jaanis ku banan
arrintaas saxaabta Soomaaliga ahayd hadda safarta kula maraysi lacagtan hadda markaa bixiso wax lacagaas ugu soo celinaya ma jiraan lacagta GPS waa garanaysaa u baahanaya lacagta interfingu macnaha TV sa 300 waxay wallahi gabadhay kolaalo waxay tiraahday lacagta macnaha ku digaysa iyo lacagtan fiisa ugu jirta tusaale waa haystaa ugu tiri lacagta haddaad bixiso aku inaad degto inaad bixiso kusoo noqonayso ama haddii fiisa lagu diiday haddii kala marka hadda waxay tiraahday joos haysataa inaad waxaaga dib uga laabato iyo in aad lacagta waxa ku siiyo rasiidka lacagta ku siiyo oo sida interviewga ku sii marto marka aniga wax meesha ka dhacay waan arkay asxaabta community-dooda oo Soomaaliya wada ahaayeen waan arkay marka sida daraaddeed walaalkay aniga wax ka soo raacsan dhaxda ka soo raacsan dirta oo xafadaas ka imaado maadaama dee lacagta meel khadban iyo meel ilaa iyo qasaar leh ma garatay wixii dhacay waan arkay oh my goodness really marka walaalkay soo saasa dhacay ma garatay bismillah niyo عاوة برادة يا بوا برادة نيو أني أهان والله محمد ساسنا سميت سن ما إلوش نيو ضد كاس كالعادي ما في لسويلة جالس شاهدون كيوتين ما ركت يعني وحمسي إن لو ديد له ما قشي سازرت هذين إسك سوبانس نيو صح ولا يكون حلو واحد نرت نيو لكن نيو إنا إسك شاهد إلا ماشان مدام أسوق رتت يعني lacagtaas yar waa ina iska bixisay oo meesha soo aragtay experience soo shid meeshaas waxay ku hayaan sababta dadku u diiday in aragtay waarun saaxiib wax saaka wax lagu haysto fahmi kartaa lagu haystaa waa intaas xireen ina martay hada calafka la xataa tijaabiso waxa kana awal dawladdu waa calaf waa marka ina si marto kiiskaaga si dhameystirto ama lagu diiday ama lagu qaaday يعني ميدان إني نعذ وحواي وقرنت حاجة ليك قرنت so wax waliba oo dhacane yani macna dariska ma dhacan yani sabab ay jirtay oo dhacan so marka ilaa qeyrkan wada wafajiyo then Mohammed markii arintan ay dhacday waxaan sameynay yani meesha inaan ugu harno yani way suurtagal weysay yani hadii maanta fiisi dad Soomaali loo soo diiday يعني محمد كانوا سفارة تجي وكسر لابته ومانته يعني واحد رجعت اللي سو ديدين يعني جانس يجري مش سو واحد سمعنا وحوها مركبوه رئيسي يعني وحال حرني سفارة دي جيبوتي وأنو شجنا برامج كيني يعني إن إنو ريجان كيس كنا وحاجة عن كده ينكم إن انترفيوين حاجة مرة لكن جيبوتي وح جواب من السوسيين waaw wacnay markii dambe even waxawaaye waxay dhaheen KCC la xiriira KCC arintii inay soo wareejin karto waxna ay qaban karto so KCC la xiriirnay oo ka codsanay in noo wareejin interviewgeena noo wareejin Djibouti then KCC way diiday waxay dhahday aniga wax ma qaban karno safaaradda Kenya la xiriira so adana waxaan go'aansanay yani in Kenyadan iskaga marno wixii dhici karo hada aragnay yani toogadan ashuli shalgalno so safaarad Kenya email u dirnay aan ku dhahnay waxa u baahnay ina balan noo qabataan maalintaasi waa imaanay safaarada yani lacag fiisa maanan wadan yani waxa la imaanay yani wax excuse yani adiga kulli raga waxa uu sheegay yani maalintaasi in lacag fiisa aan haysanin sida darteed waa imaanay documentiyadiina dhiibnay waxa wadi u laabanay so safaaradda waxay leedahay dib ma lahan waxay sameynaysiin balan loo doonay qabana laakiin anaga ma qaban karno KCC ya balantiin qabanayso ee KCC la xiriira so KCC email u dirnay KCC waxay noo soo dhaaday anaga ma qaban karno balan safaaradda sa balan qaban karto safaaradda la xiriira then safaaradda email u dirnay waxay leedahay may anaga ma qaban karno balan labaad ee waxa la xiriirtiin KCC email kale u dir waa still waxay leeyihiin safaaradda Kenya waxa balan qaban aniga waxa way hadda kiiskeena dhinacin uu ka soo dhamaaday waxa gacanta ku hay safaaradda Kenya so safaaradda Kenya waane email waa ka daanay then markii dambe waxay leeyihiin alright waan qabanayna marka in muddo ay sugnay balan ay noo qabtaan marka
يعني no intaan midaan waxaa ka horeysay ha safaaradda Kenya waxaan dhahday ballanta waan qabanayna laakiin hadda boos banaan ma jiro ilaa يعني muddo waqti ay suga laakiin waxaa ogaatiin in kiiskiini aan ku darnay dadka interview sugay waiting ku jiro so boos haduu banaanaado horaan ii gelinayna booskaas dulqaad yeesha ay suga so waxa dhacdaa waxa Maxamed marka fiisiya ayaa ka dhacaya oo dalka Kenya ku jooga marka wuxuu dhacay halaan ka badan ma sugi karo muddo 2 bilood sugay in interview ugu waan so Maxamed marka wuxuu go'aansaday inuu laabto then Maxamed wuu laabtay markuu laabtay Maxamed maalintii uu ka degay Boosaaso Maxamed ay soo wacay walaalkii uu qad daciifana waa hayaa muskooladana waa arkaa ma garatay marka niyo xaafadina ma gaarin kulli hadda alxamdulillah waa inabad keenay xaafadii laakiin ma gaarin muskooladana waa arkaa barada kulli codkan xilli ku soo gaari doona Allah aalam niyo email soo dhacayna waa arkaa barada bal waxa sameeysan emailada ka wardoon insha Allah marka xaafadda nastana ku soo wici doona ma garatay assalaamu calaykum